madaxweynaha hadda joogo farmaajo ani wiligay ma arkin isma garanayno laakiin runtii intii madaxweyne oo wadanka xil ka qabtay waa qofka oo qalbigaygu raacsan yahay hal sababaan ku raacay abaal kale khaas oo ii sameeyay ma jirto arimaha caam oo Soomaaliya uu sameeyay waxa weeyaan Soomaalidana ka warqabto anaku hadaynu nahay ahlul quraan hadaynu nahay dadkii quraanka Ilaahay u dhawaa oo quraanka akhrina Ilaahay quraanka siiyay ninkan madaxweynaha hal arin uu sameeyay inuu soo booqday Dawxa oo madaxweynaha amiirka Qatar uu imaaday si fiican loo soo dhaweeyay oo madaxtooyadii uu galay ayuu wuxuu dhahay intuu sannasan ayuu wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan soo booqdo nin la yiraahdo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi madaxdii yaabtay oo madaxweynihii Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi ma yaqaan maxaa yaa waa Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi markaasoo nin qaari oo cajiib ah meeshan joogo waa sheekhayga ah waa inaan soo booqdo anoo soo booqan howl kale ma qaban karo markaasa wasiir awqaaf la hadlay waxa la lahay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi la sheegayo soo wado madaxtooyada keen farmaajo intuu maqlay oo inuu keen la leeyahay markaas uu dhahay sheekhaasi waa loo tagaa mooyaana iskama imaa meel qof meel la keen ma ahan fadhigiisa lagu booqdaa waa madaxweynaha tahay asaa iga weyn waa inaan booqdaa gaariya loo soo qaaday sheekh guriga majliskiisa masaajidkiisa la qurxiyay xaflada loo diyaariyay meel waxa weeyaan masaajid awal biliska hilmaan sano oo iska ahaa oo dawladii waxay ciriiri bay ku noqotay arintii laakiin madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay inuu soo booqdo ninkan lahayo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo waalidkayga ah abaal badan wala maanta sharaftii wanaaga aan umada la hor fadhiyana sababtii u horeysay igaarsiya ah Allah yaxfaduhu wa yaraahu ayna ma kaan sheekh yaa loo geeyay uu ka soo duceystay intaasi oo ficilkaasi uu sameeyay ayaan ku jeclaaday wax kale oo dhaxmara dhaxdeena ani asaga ma jiraan ila yoomina hada wax taas iga weyn ma jirin arinta kale aan ku xusuusta ugu duceena waxa weeyaan in wiil oo Tanzania kaalin koowad uu soo galay uu ku martiqaaday madaxtooyada marka caadatan madaxtooyada meelaha ay madaxdu waxay soo dhaweeyaan madax kale laakiin ninka kaliya oo madaxweynaha hadda wadanka oo inta xil qabtay oo soo xasuustay maqaamka culimada Sheekh Cabdirashiid inuu ila tukado xaqiiq ahaan hadaan idin warrabo maanta dawladda Qatar oo dhan baa isla dhacday isku dhacday wasiir khaarijiye iyo wasiir awqaafkii anagana xukumay iyo wixii oo dhan waxa la yiri madaxweynihii baa doonayay inuu adiga kula tukado masaajidda waa weyn baa jira halkan ma garatay laakiin waxa la masaajidka ugu doortay baa la yiri marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tashriifkaas iyo soo dhaweyntaas